Nimco Cumar Ibraahim waa gabar Soomaali ah oo si qasab ah ku guursaday askari Ugandais ah taas oo igu gol lahayd in ay aabaheed ku badbaadiso. Inta aan u gudagelin qisada daawadayaal halkani waa Alfa Media Group. haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee barnaamijyadeena daawada. aaga saddexan inaad igu bilowdo magaceeda saddexan waxa la Nimco Cumar Sheekh Allah waa tahay marka daadaadu waa imisa Nimco 24 sano jira 24 jir baa tahay waa tahay dadka qaarkood waxay daadaada ku sheegayaan ilaa 19 sano ma jiraan 24 sano jira waa tahay magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay magaciisa runta Siiso Joshua waa tahay marka daadiisa imisaad ku qiyaasi kartaa adiguna aniga daadiisa ma qiyaasi karo adiga daada aabaha kale aha company xoogaa jir waa hagaag haddaba haddii aan ku weydiiyo Nimco sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray xiriirku wuxuu ku bilaabay aniga dhakhtarka aabaha ahaa wuxuu yiri maxaa la hadii aragtid inaad ku daaweeyo aabaha inuu isbuuc ku jirno in maxaa la aad ku guursado waa tahay marka ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyu ahaa horta ninku marka hore muxuu ahaa aniga ciidamada ma kala aqoon xili markaas toolo qof mashquulsan ahaa laakiin sidoo asii uu sheegay nin oo madax u ahaa oo islaamayo ahaa waa tahay marka markii ugu horeysay isbarateen xaggay ahayd iyaa kula joogay maxaanad ku wada hadasheen aniga isbuuc amal ku jirno oo ninkan wuxuu yiri maxaa la daawada intuu isii warqad orod suuqa bakaaraha ka doon suuqa bakaaraha marka daawada ka doon waxa la muqdisho dhan ma taalo Soomaaliya dhan ma taalo daawadaas haddii taalana waxa la gadaa $150 ma laga helo daawada marka u soo noqday oo dhahay daawada ma laga helo Soomaaliya waa ogaay yiri daawadaas inaan laga helin Soomaaliya is oolin marka saa inaa aragtidan kugu diray marka dhahay markaan dhahay warqada waa la igu dili gaarin nimanka al-shabaabka ah igu dili gaarin maxaa igu dirtay markaan dhahay wuxuu yiri inaa ku soo tasaal qaadatidan rabay ani warqada aragtid daawada aabahaba ayay maadaama uu xanuunsanayay waxa la yiri daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga daawada kansarka ee marka daawada magaceedii ma xasuusataa warqada wuxuu kugu qoray ani ma xasuusto ani mana aqoon u mali daawadaas magaceeda waa tahay markaad ka soo weyday suuqii bakaaraha isagaad ku soo noqotay wuxuu ku yiri waan ogaay inaad ka noqday asigan dib ugu soo noqday asi markaa ku soo noqdan wuxuu yiri waa ogaay yiri inay daawadan oolin Soomaaliya marka wuxuu yiri daawadan waa hayaa yiri laakiin hadaa ku siina waa shuruud yiraahdo marka shuruudaas aksoo dhaxdaan ku siina marka ay shuruud maxaa waan wuxuu yiri waxa rabaa yiri inuu guursado marka guursadaan daawadaas ku siina yiri aabaha siina marka gurka diidan wuxuu ii qoro warqad oo maxal laana lagu bixinaayo saacadaha oo marka soo socda oo lagu bixinaa banaanka lagu bixinaa waa tahay markuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan ku guursado ma aabaha hortiisa kugula hadlayay mise meel gaar ah tagteen maya meesha oo dadku oo dhiig uga cabiro xisiiskiisa waa tahay maxaad isku fahmayseen markaad luqadeed ku wada hadlayseen waxa jooga wiil Soomaali oo turjubaan dabeetana waxa tiri warqad baa la soo saaray aabaha isbitaalka looga saarayo warqadii aan la siiyay warqadii markii la siiyay wiilka turjubaanka wuxuu yiri maxaa lahaa ka fiirso hadalkan inkaas wuxuu ku leeyahay iskayal aabaha bixinin markii dambana waa ogolaaday marka inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaal uu ku galiyay si aabahan lagu saarin in ninkan aad guursato waa tahay marka maxaa dhacay markii oo aan yeelay oo ninkiina guursada aan yeelay daawooyin badan oo aaba siiyay wuxuu u sameeyay passport oo lagu soo qaadayo guurkiinu siduu u dhacay bal arrintaas aan doonay inaan ogaado siduu u dhacay guurku wuxuu u dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay laba nin oo maxaa la dhahaa Soomaali ah wuxuu yiri aniga muslim ma ahay waana guursanaa diinta islaamka guursanaa xataa wuxuu yaqaanaa quraanka yaqaanaa markii aan dhaano quraanka oo aqrinaayeen marna ku aqrinaya marna ma aqrinaayo waa tahay xagee lagugu meheriyay adigu meesha waxa tiri waa meel ciidan waana isbitaal meel ciidan oo isbitaal ah waa meesha teendooyinka lagu meheriyay marka meherka adiga markii lagu meherinay labada wadaad iyo ma ag fadhiday waa ag fadhiday marka raalli baad ka ahayd raalliya ka ahaan waa tahay aabaha iyo familkiinu ma kula ogaayeen maya lama ogeen familkeena maxaa yeelay ani aabe intuu dhal ana uweyn aniga go'aankaas isku gaaray si ugu hela aabe daawadiisa helitaankiisa ka sokow adigu soo gabar ma tiido soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaanu aabaha joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn way ahayd laakiin ayka nimanka oo ninka turjubaanka iyo nimanka oo meherka sameynaya waxay dhaheen
haddaa guur hore usoo martay oo ku mehersantaa ninkan markaa horaad sheegaa la guur hore ma usoo martay hayaan dhaha guur hore usoo maray markaa guurkaagii hore imisuu qaatay caruurna ma ku dhashay laba wiil ha markaa teendhadii baa lagugu dhex meheriyey ha teendhadii lagu dhex meheriyey reerka markuu dhamaadan daawooyin fiican oo aaba siiyey iyo maxaa la dhahaa si fiican ugu dadaalay waa tahay marka intaanan dawada gaadhin meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa ani dareenkay ma ku faraxsaneen waxa ii geysa waxa waaye daawada keliyaha la aaba rabitaankiisa marka ma aroor ani ninka ma ku faraxsaneen ma aroor baa lagu meheriyey qofaa taqaanidaa ku faraxsantaa ma aroor baa lagu meheriyey mise galab galabaa la meheriyey dabeete maxaa dhacay markaa waxaan ma dhicin waa lagu meheriyey labis nimanka wadaadada lacag siiyeen uu siiyey asi iyo ninka turjuwaanka ahaa sidii ku bax marka adigu nimanka securityka oo meesha ka shaqeeya waxay dhaheen maxaa la dhahaa arrimaa jirta aan maqalnay intay securityka oo wax iweydiinay su-aal iweydiin asaa i imaaday wuxuu yidhi wixii lagu weydiiyey waxba kama jiraan dheh waa tahay marka meesha lagugu meheriyey wadaadadii iska baxeen lacagtooda qaateen adigu ma ninkii lagugu meheriyaad la hadhay ood la joogtay ma meherka markuu dhaca hore ninka miiga tegin ani waxaa ku noqda aabbaha ku noqda beriid kasoo noqda ka dambeysay waa marka ii wacwaxaay marka wicitaankii maalmaha ka dambeeyaad kulanteen imise jeer sideed u kulmi jirteen ninka marka ma meeshuu degan yahay baad la degtay mise kolba xeradu joogay iyo meesha isbitaalkaad ugu iman jirtay meesha teendhada oo daawada uu ku bixinaayo oo daawada markay cidlo ay noqotay iwici jira uu dhihi jiray imaaw waa tahay habeenka aan diida oo ka indha adeega oon diidana wuxuu dhahaa sidii daawo aaba ma siin jirin marka anigoo qasanaa aan inta raaci jiraa oo wuxuu rab iga samaysan jiray marka uurka waxaad qaaday intuu aabbahaa noolaa ha intuu aabba noolaa markaad aabbaha muxuu xaaladiisu ku dambeysay markii ninkii aad ka ogolaatay inaad guursato waxaad tihi dawooyin baa la siiyey aabbaha xaaladii aabbaha maxay ku dambeysay aabba xaaladiisa sida daawo hadday noqoto daawo fiicana la siiyey laakiin waktiga aaba u dhinta aaba marka aabba wuu geeriyay ilaahay ha u naxariisto dabeete adiga maxaa kugu dhacay markaa ani dhibaatooyin badan aan la kulmay dhinaca al-shabaabka soomaaliya waa tahay familkaaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada amisom ka tirsan oo ugandhaysa ha way ogaadeen hooyo iyo walaalahay way maqleen maxay dareemeen marka hooyii markaa u sheegay arrintaasaa u sheegay hooyo igama xumaan hooyo waxay ogeed arrinta lacag la-aanta neesta iyo marka waxay dareemayeen in duruuf markaa jirta darteed aad u gashay arrintan waa tahay markaa nimco xageed ku umushay marka maxamar baad ku umushay mise waxaad ku umushay kambala soomaaliya ku umulay imise jir weeye marka waxaa la ii sheegay inaad dhashay wiilkaaga waa imise sano iminka wiilkayga wuxuu jiraa sanad iyo 5 bilood jiraa waa tahay marka dee reerkiina waxaad igu tiri soomaaliya joogaan iminka ha hooyaday walaalay soomaaliya joogaan aniga falkaas sameeyey darteeda qaab loo marsiinaya iyaga maxaa soo gaaray marka iyaga maxaa lagu sameeyey ayaga dhibaatooyin badan ay la kulmeen hadda wiil walaalkii xataa waa la la'aa inay wateen ciidamada al-shabaabka lama yaqaano mid way xirteen wuu u xirnaan jir iyo hooyo way u xirnaan jirtay qaaka hadda way fiican yihiin waa tahay marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo kulley qadarta eebana way ku dhacday laakiin adna sababteedaad lahayd marka maxay kula tahay baad u malaynaysaa markaad dhibaatadaasi eegto faamiligaad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma waxun baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay ani mid haddaa fiiriyo wuxuuna sameeyey waalidka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada laqa qabsanayo way dhibaysaa mid haddaa fiiriyona wax fiicana sameeyey aabe iyo ciddana wax la-aanay ahaayeen marka saasoo ogolaanino waa tahay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda soomaaliya adag tahay ciidamada ajanabiga meesha jooga la xiriirkooduna uu dhibaato badan keenayay marka miisaankaad isi saartay inaad aabbaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara weli ma xisaabtantay mise waxaa markaa kula weynaa xanuunka aabbo xanuunka aabba ila weynaa waa hagaag marka reerkiina hooyada markay ogaadeen waxan iyo dhacdadan dhacday ma ku garab istaageen mise waxaad kala kulantay inay kaa hor yimaadaan oo ay ku canaantaan maya hooyada iyo walaale aadi ii garab istaageen markastana way iisoo duceeyaan qur-aanna way iisoo akriyaan hooyada iyo walaaleyna way fiicayiin waa tahay haddii aan ku weydiiyo kolle xamar adiga ogaa ciidamada amisom iyo dadkay daweyn jireen iyo xiriirka ka dhaxeeya ma jireen ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay isweydiiyaan inay jireen hablo kaloo sidaada oo kale ah oo ay ciidamada xiriir la lahaayeen maya ma jirin
ilmo markaa kasoo tegayana ma jirin halaas ma jirin 100% ilmo amisom way fiicnaa asiga keliya qaladkaas galay dadku way daaweynayeen nabadgelyo iyo daawo bay bixinayeen marka maxaad dadku u sheegi lahayd si dabcan inkastoo ay dadku isku mid ahayn oo haddaad codkaaga Soomaalida u gudbin lahayd maxaad dadku u sheegi lahayd أنا أرنت واحد بين أمان وحمد وهلا المنام سومالنا قفنا أم سومالي أم قفنا هنقدر كمرة وشرف وحشرف أكرب أكرب إنه يدعي أعرف أبي أبين الله نحرسته ضدك إيجا فكر سن إن قفنا هنا ليه أنا قفنا وأسكت أستأنا عن قبلها أوفي عنا fadlan la socod daawade qaybta labaad ee qisadan halkani waa Alfa Media Group subscribe saaro haddii aad hilmaamtay